ضيبانها أرضيبانها وبحي ودنكانها أرضيبانها وبحي ودنكانها وحان ورديا دكسي ذو آذى وحان ورديا دكسي ذو آذى إنن أقن قرر صارود الكيغا أنفعي ذا الكي لا يمذي الله يروي قرقان إله يروي قرقان بسم الله الرحمن الرحيم waxaan isku day doonaa inaynu wax ka niraano laws of indices maxaa la dhahaa laws of indices waa saaska ama basica xisaabta oo dhan marka waxaan isku day doonaa maanta inaynu dib istaagno xeerarkeeda ardayga aan garanayn ama aan aqoon u lahayn xeerarkani waxa ku adkaan doonta inuu ka shaqeeyo xisaabta mediumka ilaa wixii ka sareeya si marka aad u fahanto fadlan clipkan nala daawo isla marhaantaa la share gareey asxaabtaada like tanaha naga ilaawi aan iska bilaabno cashirkeena xeerka koowaad wuxuu leeyahay xaraf walba ama number walba oo lagu jibaaro 0 qiimihiisu waa 1 tusaale kun lagu jibaaray 0 qiimihiisu waa 1 maaha 0 afar kun oo lagu jibaaray 0 qiimiheedu waa 1 y lagu jibaaray 0 qiimiheedu waa 1 anything shay walba oo lagu jibaaro 0 qiimihiisu waa 1 divided by 100 lagu jibaaray dhamaantii 0 qiimihiisu waa 1 halka waxaan kaga tagnay xeerkii koowaad aynu gudubno xeerka labaad wuxuu leeyahay number walba ama xaraf walba oo lagu jibaaro number negative qiimihiisu wuxuu noqonayaa hal loo qaybiyay numberkii iyo negativekiisii oo positive tusaale waxaan haystaa 8000 oo lagu jibaaray -4 qiimihiisu muxuu noqonayaa maxay la mid tahay hadii lagu dhaho ka shaqee waxaad oranaysaa 1 loo qaybiyay intan gebigeedaba soo qaado waxa ka hoose keen hadii tusaale kale aan soo qaadano 9 lagu jibaaray -3 hadii lagu dhaho qiimiheeda soo saar waxay la mid tahay 1 la hoos dhigay 3 u fiirso xaggan waxaan ku haystay -3 muxuu isku bedelay positive 3 xeerkiina marka wuxuu leeyahay haddaad haysato number negative oo ku jibaaran number caadiya qiimihiisu wuxuu noqonayaa hal marka hore soo qaado u qaybi numberkii soo qaado jibaarkiisana waxaad ka dhigtaa positive waa xeerkii labaad aynu tagno xeerka saddexaad wuxuu leeyahay haddaad haysato laba number oo isku mid ah baawaroodu way isu geesmayaan tusaale afwan 4 lagu jibaaray 3 oo lagu dhuftay 4 lagu jibaaray 2 maxay la mid tahay qiimaheedu wuxuu leeyahay labadan oo soo qaadatay mid ahaan labada baawar oo la isku geeyay waxa waajiba in labada number ay isku mid yihiin tusaale labaad soo qaadano haddaad haysato 8 lagu jibaaray 3 oo lagu dhuftay 8 lagu jibaaray 3 oo lagu dhuftay 8 lagu jibaaray 6 waxay noqonaysaa labadan number isku midka ah mid ahaan ka soo qaado labada baawarna isku geey taa hore afwan waa ilaabay waxay noqonaysaa 4 3 iyo 2 isku geey waxay noqonaysaa 4 lagu jibaaray 5 kana muxuu noqonayaa 8 3 loo geeyay waxa weeyaan 9 xeerkeena afraad wuxuu leeyahay haddaad haysato laba number oo isku mid ah powerskoodna ay kala duwan yihiin labada number mid ahaan soo qaado powerskoodna kala jar tusaale 5 waxa la siiyay 5 lagu jibaaray 6 oo loo qaybiyay 5 lagu jibaaray 3 ayaa la yiri soo saar qiimaheeda maadaama labada number ay isku mid yihiin mid ahaan ka soo qaado kan sare xagga sare yaala u daa powerka xagga hoose yaala soo qaad xagga sare keen laakiin muxuu noqonayaa minus labada number hadii ay isku mid yihiin mid ahaan soo qaado ka xagga sare yaala powerkiisa iska daa oo positivekiisa u daa ka xagga hoose yaala ee soo qaadayna powerkiisa ka dhig minus tusaale kale u fiirso waxaan haysanaa maanta numberka sare waa 6 lagu jibaaray 4 oo loo qaybiyay 6 lagu jibaaray -3 u fiirso numberka xagga sare yaala 6 ka yaalaya noqonayaa 6 power 4 labadii number ee 6 ka ahaa
mid ahaan baad soo qaadatay oo waa 6 powerkiisa iska daa kan xagga sare yaala ka xagga hoose yaala powerkiisa uu isbedelay hadduu plus ahaa marka hore minus ku noqday imika waa minus wuxuu noqonayaa plus deetan jawaabta ugu dambaysa maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa 6 lagu jibaaray 7 kan sare kan dhibida wuxuu noqonayaa 5 lagu jibaaray 6 laga jiro 3 waa imisa waa 3 xeerkii afraad baynu halkaa ka baxnay waxaan u gudbinaa xeerkii shanaad xeerka shanaad wuxuu leeyahay haddaad haysato number lagu jibaaray number kale oo number kale ku sii jibaaran yahay jawaabteedu maxay noqonaysaa jawaabteedu waxay noqonaysaa numberkii oo soo qaadatay iyo labadan power oo aad ku dhufatay tusaale waxaad haysataa 6 waxaad haysataa lagu jibaaray 3 iyo 2 numberka iska soo qaado labadanna isku dhufo waxaad haysataa 3 times 2 waa imisa waa 6 haddaad sii socoto calculator isticmaal waxay noqonaysaa 6 tusaale kale waxaa la siiyey 4 lagu jibaaray 3 oo lagu sii jibaaray 7 ayaa lagu ka shaqee xageed ka bilaabaysaa numberka xaggan iska yaala marka hore iska soo qaado 3 iyo 7 kana isku dhufo waxay noqonaysaa 21 inta calculator geli xaggana waad ka tagi kartaa maxaa inoo dhamaaday xeerkeenii afraad waxaan u gudbinaa xeerkeenii lixaad baa inoo dhamaaday cafwan waxaan u gudbinaa keenii lixaad ee u dambeeyay haddaad haysato number x oo lagu jibaaray n by m m to xagga banaanka maraysaa numberkiina soo qaado square root geli n na saar tusaale waxaan haystaa 7 lagu jibaaray 3 waxaan haystaa 7 lagu jibaaray 3 waxay la mid tahay soo qaado 7ka waxaad gelisaa square root numberka banaanka u baxaya waa 3 ka xagga banaanka yaala 7 kuna guduhu soo gelayaa wuxuu noqonayaa 7 u fiirso halka numberka banaanka yaala guduhu soo gelaya numberka gudaha yaala banaanka u baxaya 7ku banaanka yaala guduhu soo galay 3guna guduhu ku jira banaanka ku tagaya haddii sii yarado waxay noqonaysaa afwan 49 oo sii noqonaysa marka la sii yareeyo okay halkaas ayaynu ku soo gabagabeynayna haddaynu mar labaad ku noqono example rule-keena koowaad wuxuu lahaa haddaad haysato number lagu jibaaray 0 ama number ha ahaado ama xaraf ha ahaado wuxuu doona ahaadee number kasta oo lagu jibaaro 0 jawaabtiisu waa 1 qiimihiisu waa 1 xeerkeena labaad wuxuu lahaa haddaad haysato number lagu jibaaray minus number ah wuxuu noqonayaa hal loo qeybiyo numberkii oo soo qaadatay markuu hoos timaado muxuu noqonayaa positive noqonaya halka waxay ahayd minus n maxay noqotay plus n ka saddexaad wuxuu lahaa haddaad haysato laba number oo isku mid ah base waa inuu isku mid noqdaa haddaan isku mid ahayn waa khalad xeerku sidaa ma sheegayo haddii labada base ay isku mid yihiin baad isticmaali kartaa xeerkan marka waxaan haystaa egas lagu dhuftay egas oo mid kastaaba n iyo amsaaran yahay labada power isku gee ka ugu dambeeya muxuu ahaa ka afraad muxuu ahaa afwan egas lagu jibaaray m oo loo qeybiyey egas lagu jibaaray n maxay noqonaysaa labada power kala jar salaam waxaan haystay halkan 5 waxa ku jibaarnaa 6 xaggan maxaan haystay 5 waxa ku jibaarnaa 3 5 ka soo qaado 6 ka 6 u daa 3 gana xagga sare u imanaya maadaama xagga sare imanayo wuxuu noqonayaa -3 ka afraad wuxuu ahaa xeerkeena afraad wuxuu ahaa kan ka shanaad wuxuu ahaa kan wuxuu noqonayaa egas lagu jibaaray n oo lagu sii jibaaray m labada number isku dhufo egas tanad ka soo qaado 6 baad haysataa waxa ku jibaaran 3 waxa ku sii jibaaran 2 bay 3 isku dhufo waxa noqonaysaa 36 xeerka ugu dambeeya waa 6 ka wuxuu noqonayaa egas lagu jibaaray n by m number baad haysataa ay ku jibaaran tahay fraction ama chapter sidee baad ugu shaqeynaysaa waxaan uga shaqeynayaa numberka banaanka yaala ee 7ka hoostuu soo gelaya ka gudaha ku jirana banaanka u baxaya haddaan tusaale kale halkaa inaga siiyo wuxuu noqonayaa haddii markaan haysto 8 lagu jibaaray 2 by 3 qiimihiisu muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa qiimihiisu 8 ka soo qaado qawska yare square root-ka fur numberka gudaha ku jira ee 3 gu xagga sare u tagayaa ka banaanka yaala 2 guna xagga hoos u imanaya maxay noqonaysaa intani kan si yare wuxuu noqonayaa 64 haddaan mid kale ku sii daro waxay noqonaysaa haddii la siiyo 9 waxa la siiyay 9 lagu jibaaray 4 loo qeybiyay 5 muxuu noqonayaa qiimihiisu
9 ka soo qaado square root geli xagga banaanka waxa tagaya 5 ka gudahana waxa soo galaya 4 ka